horeyso ayaa waxa loo sheegay Cabdullaahi waxa la yiri hashaadii ninkii baa isha la raacay wuxuu yiri itusiye buu yiri kadib meesha markuu intuu soo istaagay wuxuu yiri bismillaah habsun habis وحجر يابس وشهاب قابس وردت عين العائن عليه وعلى حب الناس إليه فارجع البصر هل تلا من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسا نينكي بيكون نقطة إليه يعني طبعا مع إدلالي للعلامة شيخ ابن القيم الجوزية runtii nin calaamo laakiin qisadu marka soo xigtay waxaana dhacday buu leeyahay ninkii baa isaga meesha ku dhacay hashan way badbaaday sida marka uu tilmaamayo yani ilaahay wuu badbaadiyay buu leeyahay marka ina tiraan marka habsun habis mid la xiray xarig iyo mid la xiray iyo xijrun yaabis iyo dhagax qalalay iyo shihaabun qaabis iyo tabaaburo la dafay insha Allah ku celiye farjic albasara wa hadalkii Soomaalida asbax min as-subh qumay hay cilaysani tiyo kale af Soomaaliya laga dhigay marka macno badan ay sameynaysa marka malaha maxay nas laga qaadan maayo طبعا umadii hore run ahaantii umadii horena waxaan way lahaan jireen waxa kala dhici karta waxay tilmaamaan qofka inuu isaga is ilaystaaba dhici kartaba adaa is ilaysanay baash way soo fogaato ogaada adaa is ilaysanay waxa dhacday alimanaa wuxuu leeyahay Suleymaan Abdul Malik baa muraayad hor istaaga buu yiri wuu is ajabiyay markaas yiri kaana Muhammadun nabiyyan nabi Muhammad nabi buu ahaa wa kaana Abu Bakr siddiq buu ahaa وعمر فاروق بوها عثمان حبيب بوها معاوية حليم نين دلقات بدن بوها يزيد نين صبور بوها عبد الملك سائس نين سياسي وها الوليد نين جبار وها وأنا الملك الشاب أنا وحنا نين دل يراها أو وحنا هاي بقرة بالكذب بواد انتبه دهن أساء إلى السلس أرين كان هدو صح نقضو خطر واحد سوق له دل يراها ما أنت المرايد دور تاجن oo gabadha maanta markay muraayad hor taagan tahay Allah dhexdeeda halahaas ay noqotay kullada waa bil kadib waa dhibanaysaa macnaheedu ama wiilka maanta inuu meelaha intuu hor istaago 6 box baa ii soo baxday bil kadib aadna waa socotaa janaasadaada loo kiire waa haduu sax noqdo marka waxaan leenahay hadii adiga xataa is cajabisid ba ma sha Allah wada bal isugu dadaal bal baasha khatarteeda ay leedahay waxa kale suurta gala bimujarrad samaa wax markaa maqashid qofka isaga wax maqlay ba wax laga yaabaa inuu xeelaysto بمجرد السماع ويصورتقل وماشي علماء إليهن خصم معه قفك وحيليسني إنه ماشى يعني قفك لا إليسني إنه ماشى الجو خصم معه وحديع كرت بمجرد إلا صفايا يا صورتقل هذه إلا صفايا ولذلك أسمع يحيري نين أنا إن الله هين أيا وحاليري وعم مغلي يعني وعم مغلي ناف لا مرك لا ليس أيو مغلي يعني شو حدا يبو يعني هسه وبحيان يوحي مركو الله يابي أيو يحيري ما أركتي ويري يا إسكاله marka waxay isku dayeen inay wax kala u sheegaan oo ay tooriyeystaan neef kala loo sheegay si marka ishaari ugu dhicin neefkii loo sheegay iyo kii uu maqlay intuu way israaceen baa leeyahay idan waxay kamid tahay waxyaabo marka ay sheegaan wala kullin xitaa waxa dhici jirtay lidaraja inay tartan baxata ka dhigan jireen taraf ariga waa arin xadka ka baxay yani in ba imanay tog buu soo maray wuxuu leeyahay laba dhagax meesha taal waan jajabinaya mid kala imanaya afar buu hadana jajabinaya طبعا waxay leeyihiin marka al-adab al-arabi dib ugu laabatid waxyaabahan way jiri jireen laakiin annaga waxaan leenahay mar hadii aayad ay taal mar hadiiba adkaarta ay taal mar hadiiba qofka haysi xirsi xira la yiraahdo intaas kugu filan maxaa xirsi weyn meeshan ugu xiran tahay ma aragtay wisaam oo kale meeshan maxaa ugu xiso xiranaysa nin weyn baa tahay yani xirsi weyn inuu meesha ku xirnaado hadii xataa aayad ay ku dhigan tahay xamaamka la galaysa iyadoo aayad markay ku qoran yihiin ama xadiis ay ku qoran yihiin far yahuud haday ku dhigan tahay yaa noo baneeyay marka inaan xiranno طبعا وما بانين marka hawlahan tirada badan aan wadno dhan waxa kaaga filan al-Fatiha waxa kaaga filan barbinaas barbil falaq guriga marka galaysa adkaar ku gal marka soo bixin adkaar ku kar adii il is arki maysaan nacam culimada qaar baa maanta tilmaamo dhaho hatta cuduradan tirada badan dhiig karka haduu noqon la sankarta haday noqon lahayd laga yaabo inay wax sababaan laakiin waxaan dhihi lahaa war wax kasta ee tibbi u baahan yeenan kala bixin xadkii meel kale yeenan gaarsiinin haddii adkaarta la aqriyo qofku uu bogsoonaa biidin Allah subhanahu wa ta'ala hawlahan tirada badan anaga aan wadno marka wax macquula marka ma la aqbalayo ahadiith fara badan baa marka jirto isha ku soo aroortay kulliyo daciifa waxa kamid xadiith Ali ibn Abi Talib laga wariyay in rasuulka sallallahu alayhi wasallam yiri jamaajim ha lagu beerta xadiith waxa ka jira marka ma xadiith kale waxa jira isagana fa inna al-hartha mubarak wa akthiru fihi al-jamajim wa da'if wa lamida ishu wa haq shaydaan iyo xasadka bini aadamba way soo galaan iyadana wax kama jira xadiithkaas حديث أنا سوكله قفك هدي إلهي نعمة ونعمة مال ولد يوحي لم يرادو ما شاء الله يرادو إيش هو كبد بعض حديث ضعيفة حديث يسوون الشيء قفك أركوح عجبية هدي هذا ما شاء الله المجارس حديث ضعيفة
xadiid kale waxaa jira isagan axaadiidaas oo dhan waa xadiid daciifa marka baabkan waxaad dareemaysaa gunaanadkiisa wuxuu noqonayaa saddex qodob baan kusoo gabaynaynaa qodobka koowaad ishu waa wax sugan sida cinwaankuba alcaynu xaq doodna kama taagna arrinka labaad daway leedahay dawadeedana waa adkaarta markaa la sheegay arrinka saddexaad waxaan ku dardarayno aan buunbuuninayno yani ilaa iyo hadda wax asala markaa ma laha rasuulka sal lla alay slam xadiidiina waxaa ku badan hal tattahimuuna lahu min axad marka ku tufa ku aqriya intaa ayaa marka loo baahan yahay sifadan alimaam zuhri uu sheegay waa tan uu leeyahay jumhuur salaf sidaa bay qabi jireen alimaam nawowi sidaa ha loo sameeya biidn illahi subxaana wa tacaala waxaana leenahay ilahay waxaan weydiisanaynaa in uu naga badbaadiyo min shari xaasidin idaa xasad wa ilaahuna billahi tawfiiq علي محمد صالح